الفرقان بيني وبينك حرمة القرآن اشرح به صدري لمعرفة الهدى واصل به قلبي من الشيطان يسر به أمري فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير ولئن أرسلنا ريحا فرأى. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أيها المسلمون، خذوا حبوس عشان تهي جزاء عباد الرحمن، موضوعا معناه هران كهذا وصايا ولد وصعنا بدك إلهي سبحانه وتعالى عظم مدي ساها dadka adduunka markay ku noolaayeen dhaqankooda wanaagsanaa ilaahay subxaanahu wa tacaala abaalgudka ugu ballan qaaday ee ku soo arooray qur-aanka iyo sunnada rasuulka calayhi salaatu wasalaam. saa darteed khudbadeena waa un axaadiid, sheeko badan kuma dhex jirto, waa axaadiidula saxiixa oo nabiga ka sugan calayhi salaatu wasalaam oo uu loogu sheegahayo jannada iyo yani qiimaheeda waxa uu yahay iyo dadka ilaahay subxaanahu wa tacaala meeshaas yani u qorsheeyey ee u shaqaystay abaalka ay leeyihiin. addoommada ilaahi subxaanahu wa tacaala ee adduunka markay joogeen sidii la rabay u socday waan soo marray tilmaamaha waxyaalahay samayn jireen iyo waxyaalahay iska ilaalin jireen intaba khudubkeennii hore ee musalsalkaa baan kusoo qaadanay tilmaamo waxaan soo qaaday dhowr iyo toban ka badan oo ah saa way yeeli jireen saana maynan yeeli jirin. qof walba marka oo markuu adduunka ku nool yahay dhaqankiisu noocaa noqdo waxyaabahaas ka fogaado oo iska ilaaliya waxyaabaha noocaasna ku sifaysnaado oo dhaqankiisu nooca uu noqdo ilaahi subxaanahu wa tacaala waa abaal marinayaa. abaalgudka ilaahina subxaanahu wa tacaala waxa weeyaan waa janna. rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxaa ka sugan inuu yidhi ilaahi subxaanahu wa tacaala badeecadiisa uu wax ku gato waa janno. jannaduna maxaan ku dhahaa ama badeecada ilahi subxaanahu wa tacaala waa qaali, badeecada ilahi waa qaali waa janna. qofku marka maxaan ku dhaha waa inuu la yimaado camal iimaanka ka sakow, markuu iimaan la yimaado camal waa inuu la yimaado si uu maxaan ku dhaha mataqaanaa jannadaas yadaa u helo. haddii marka khudbadii hore aynu nidhi qofku yani jannada ilahi subxaanahu wa tacaala addoommadiisu u abuuray oo ugu talagalay, hadduu qof marka ummatu muxamed yahay oo maxaan ku dhaha mataqaanaa uu muslim yahay yani jannadu kama dheera aynu nidhi. xaqiiqadu waxay tahay jannadu ma dheera, laakiin waxay u baahan tahay hawlabad bay u baahan tahay, shaqay u baahan tahay, sabir bay u baahan tahay, ikhlaas bay u baahan tahay, cilmi bay u baahan tahay, camal bay u baahan tahay saxsan oo cilmiga maxaan ku dhaha mataqaanaa uu saxay u baahan tahay. axaadiista annaga waxaan ka arkaynaa biidni illahi tacaala waqtigan intuu nagu simo. xadiidka koowaad bukhaari baa soo saaray iyo muslim. abu hurayra radi allahu tacaala canhu ardaahu baa warinaya, wuxuu ka sheekeynaya dadku markay jannada gelayaan say u egyihiin. adduunku waa ogtiin dadka markay ku nool yihiin sida loo kala duwan yahay, qola madmadow, qola cadcad, qola dheer, qola gaaban, haasaa loo qaybsan yahay. laakiin dadka jannada ahlu jannaha ilahi subxaanahu wa tacaala uu yani jannada lagu martiqaadayo tilmaantoodu sidee weeye. xadiidka dhegeysta rasuulku wuxuu leeyahy calayhi salaatu wasalaam ina awala zumratin yadkhuluuna aljannata calaa suurati alqamari fi leylati albadri. guutada koowaad ama dufcadda koowaad ee jannada loo furayo gelaysa dadku way u kala hormarayaan jannada. dadka jannada ugu horeeya jannada loo dirayo rasuulku wuxuu leeyahy calayhi salaatu wasalaam muuqaalkooda wuxuu u egyahay dayax afar iyo tobnaad ah. cadiinka iyo dhalaalka iyo quruxda iyo say u sarreeyaan iyo meeshay joogaan saasay ku tilmaaman yihiin. rasuulku wuxuu leeyahy calayhi salaatu wasalaam qolada kusoo xigta waa qolo aad moodo xidig aad u dhalaalaysa oo maxaan ku dhaha mataqaanaaye iftiimaysa quruxda iyo dhalaalka iyo meesay u koreeyaan meesha ay joogaanba. wuxuu yihi nabigu calayhi salaatu wasalaam laa yabuuluun, jannada hadday galaan kaadi lagama yaqaano, saxarana warkeeda wadaa, khaakadtaa warkeeda, candhuuf hataa lama tufaay, shanlooyinkooda ay ku shallaysanayaan waa dahab iyo fidday ka samaysan yihiin. muxuu ahaa xaasaskooduna waa xuurul ciin, muuqaalkooduna maxaan ku dhahaa wuxuu u hanaaneg yahay aabbahood aadam intii uu hawaadi ilahi subxaanahu wa tacaala uu abuuray 60 diraacan fi samaa, 60 dhudhun oo joog awey. marka muuqaalkoodu yani dad aad laf u leh aadna u qurux badan weeyaan. ilahina subxaanahu wa tacaala uu saa u sharfay oo saa u qiimeeyey. riwaayada bayhaqi waxay ku daraysaa intaas iyada ah jamaaluhum ka jamaali yuusuf, quruxdoodu waxay kusoo xasuusinaysaa quruxda nabiyullaahi yuusuf. yuusuf mina arag laakiin tilmaanta aan hayna waxa weeyaan adduunka quruxda taala nus kamid isaga haystay, nus kamid nabiyullaahi yuusuf baa haystay. quruxdoodu marka waxa weeyaan yuusuf bay kusoo xasuusinaysaa. rasuulku wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam qalbigoodana
أيوب أبو ملاينيسا نبي الله أيوب وهو نبي نبي كمدا قلب النظيف على قلوب كان بينه نظيف وقلب الداعرة أو إخلاصه أو بين يغش يخيانه يبلاوي في قلبه يدري أنا قولي يسوي حوار دير على نبي الله أيوب إنه هو أحد أصل بدنا أدل قاب بدنا واتقنا ولا امتحانات أدوك يعني واجه لي إن بدنا بوجرنا ما تحنجحن مالك لا عافية ربي بكم هتشيجني هاي بكم هتشيجني أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين بولا بقى ضمن عاصى قلبي هو صافية هيوة وده قلبي هو وحده سكون بالدليل وسكون النبي بأمر الرواية بيها باكو دريسة وعايز يديروا بقى هالمركع حبيت انتقنا يعني حبيتنا عبيان ليش أنا ليه هاي السحرية كارمين اللي جميع قانو حاجي أنا لسه عنتدي لو أنا قلنا عنتدي لو قلنا وأنا بحرا يعني أتليست قريب كم حديث كإسرائيل حديث كده يسمى حديث كان كايتش ورا سؤال جابر رضي الله تعالى عنه وارضاه وله هي رسول الله عليه الصلاة والسلام إن أهل الجنة يأكلون فيها ويشربون بقى جنة لجيوا ويعنيان وحن نعمل الله سبحانه وتعالى ويعبيان وحيالا عبتانك ولا يبولون ولا يتغوطون ولا يمتخطون من كاتشيان من سحرونيان من خاخطفنيان صحابة مكة واحد قالوا يا رسول الله فما بال الطعام انتظر لغني حال كذا وسلام قرية رسولك عليه الصلاة والسلام ولا داعية بس مركي داعنا معاكم لما تقعنا يثي واتقي سايو ولوك لتقي داع قولنا وركي من تري سجن وإلى أساسنا قرية طيب وين بديديان وحيوك لقوا إذا مكة قيد داعية قيد بيدي تكون سويان عرفت يتقول كده تقول واحد ويان هلا يقول معكم زمان ما كنت تقول جاي وأنا كعرف دليل هكذا تكبح إذا أنتبه هذا أنت تقول لي هلا كيرا معاكم لما تقعنا هنا يا حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه وارضاه يسوي قوليه هي رسول الله عليه الصلاة والسلام أحدى وريسي النسائي والذي نفس محمد بيده إله النبي محمد نفس سدعنتكم هي يقول عرقيه إن أحدهم لا يعطى قوة 100 رجل متك أهل الجماعة كم بذا وحال الصينة يا أول حديث أدون قلبوا قيمية بقولنا بقى أنت إسلامي ستي بقولنا أول إلى حياة أدوكم ممكن تشوفين حاجة عنطلة حاجة عبتانك حاجة معاكم نمط على الشهوة بقول من أنت قيسان لها ينبع هالقف كشرتا يعني أنت وقام الكرامة كعب بكرامة وغير معمولان كريم رسولك عليه الصلاة والسلام مركو أنت الشيء بقول يريد تكون حاجة أحدهم يعني رشحا يفيض من جلودهم يعني منطقة يا بداك هذا مركو عنا شركة والله حكى صباحها يديد مركز رسولك عليه الصلاة والسلام يريد كرشح المسكي يمر بطنه وتقول كيس هو مسكي يوكله على جزء يكون هذا عايز هذا إنه عنوب يعني مركله يعني عنطلة شنو ولا قاعد يعبتان كذا باهي الله معنا وكرة حيز شيء يكون شيء فكيس الله معنا معنا ما في ملجأ الله معها سيدا أوجد عنطلني يعني عنطلة يقولك كونا لطبيعة معه لبقى معه هل قاسم معه كنا كسب بحيسا أبو سعيد الخدري سأل حديث كيسو وقوليه هاي رسول الله عليه الصلاة والسلام إذا دخل أهل الجنة ينادي مناد markay janada inta loo furo ku soo xaraanay soo galaan ilaahay xaqiisa waxa la amraya mid dhawaaqay oo weysiis baa la bixinaya oo weysiiska la siinayo marka waa maxay waxa weeyaan inna lakum an tasuhu fala tasqamu abadan ilaaha balaqaadkan bixinaya subhanahu wa ta'ala waxaad mutaysateen oo maanta laga bilaabo aad ku bishaaraysanaysaan inaad caafimaad fuul haysataan oo idaan jiranaynin oo rabbi ko adduunka ogna dadka maxaa ku dhaawanta noolka cabsiyaha uu qabo waxa kan bida dhimashada aad uga cabsanaa armaa jiritaana waa noo xigta أرماد نافوذة أرماد نبيشة أرماد الوضع وما إلى ذلك إن لكم أن تصيحوا فلا تسقموا أبدا وحاد يعني إذن سقناتين العاصمات سنتان وإذن حنوصن الوليين وإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا وحاد ليذهين إناد نولاتان وإذن دمشد دمبي أيضا كول ورن والليذهين صدق وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا وحاد ليذهين الذين بلقاضي إناد باليراء هاتان بربارو وإذا بقول من وريجين على دغنمادو ما سهلنا محيا الصفقة اللي جريء فيه قف قول أنت سوى بقى يا وقته إنه جبلوه نافذوه حنسوه بقى يا وقته بشارة صدحات وحلا غير إن بقولنا كبقينا لأن يلا هان إنسان وريجين يالين هل كذا تشوف إنسان وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا من رب سبحانه وتعالى وعليهم إن هذا النعمة ستان برواقع ستان أرار يفقري يبوسي كبقينا بشرته وهذا ما تتاسيرا كذبنا يعني رسولك عليه الصلاة والسلام هو في آيات القرآن كا وقال سبحانه وتعالى ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون وحلونا واقع أن تلكم الجنة تنوات شنوي ميوي تيمي شنو هايوي بحال هذا الإبليسي بما كنتم تعملون في الدنيا الدنيا عمل كسو قبل إنسان أمام في الإنجليزي يوي ولا شقيستين
lagama soo yani qaraamin waa idinka shaqaysatay waa lagu dhiirigelinayaa maahane waa idin garan meesha maya saas marka lagu dhahayaa mar ogeysiiskaas la siinayaa yani aayadaha quraanka khudbada hore aan aqriyay waa macruuf oo garanaysaan cuntadooda iyo xaasaskooda markuu alla ka sheekeeyay subxaanahu wa tacaala ilaahi subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi asxaabu lyamiin baa la yidhaahdaa waa midigta dadkeedii noloshooda adduunka o dhan baa midigta ka socotay asxaabu lyamiin adduun bay ku ahaayeen xagga amayna ku noqonin asxaabu lyamiin midigtu nidaam bay u leedahay waysadaa laga bilaabaa cuntadaa lagu cunaa dadkaa lagu salaamaa qur-aankaa lagu qaataa midigtaasay noloshooda dhan ka habaysnayd asxaabu shimaal adduunka mayna ku ahayn alla subxaanahu wa tacala wuxuu yidhi ma asxaabu lyamiin asxaabu lyamiin maxaad ka taqaanaa وأطعم أنتظر وفي سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة كل غير وأنواع كلا جديسان وفروت وفاكهة وعنده سبوت شيرته والله أبلغ قال سبحانه وتعالى حاسس كولا يعني سورة الرحمن إله سبحانه وتعالى وهو شيء يعني آية ربنا على جهة الله سبح كوادور ولي واللوقي بيجي واللوقي عنده ولا كشكي سبحانه وتعالى تلعنا وحكم بدا إليه حول العين الله يقول إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين أيضا قرآن وليه حيوين إنا أنشأناهن إنشاء معنا روحوي كبيه مؤمنات كهاي أدون ككد قوري أدون كعمر كوها مركي حاجة تغان سيد الرب رأي لم تكيين والله دلن علمية وحالقات بها أنشأناهن إنشاء ضد الله بأبوري مركز سبحان الله قد 33 سنة وصدح يسود ينشروا صدح يسود ينشروا حويان aan xagga loo gudbaynin hoosan loo soo noqonin maxaa yeelay inta koraysa yaraan baa jirta fudfudayd wax badan baa jirta wax laga wax fiican haysta laakiin uu fahmi lahayn waa yariye markuu dhaafana waxa daawa taabanaysa halkaas marka lagu jarayo inna ansha'nahunna insha'an wa Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu yiri faj'alnahunna abkaran waxa laga dhigay abkar yani abkar waxa weeyaan hawlciinta haweenka jannada joogsaas abkar u yihiin yani mar walba ma marka kooraad ee jannada la tago ee la saroosay inay abkar yihiin ma يعني مر والبقى ليسوي ما دو قفتا ولي لما طابنين ساسو أمو قنيسا الله سبحانه وتعالى يقول عربا أترابا وعرب كواحد لهذا هو إذا كنت تخصصتي نوع الرجل ليسو تشيتو مقال هالنقطة حلال هالنقطة طابجة هالنقطة قال لها عرب تلمان تاسيلين الله يقول أترابا وأسكداء محال غوضا واحد بيت تشوفون انت سيكون رجعين maxay yeelay haday mid weyn midir noqoto dalaca bani aadam wax baas oo halaaba taas oo ana ka khatarsantahay tan yar arna ka sii khatarsantahay inay hal lahayd laakiin tan in la qanciyo la rabaa oo meel kale aan qaltaa kale uusan siin jirin baa la doonayaa hadii ugu dambeeyo khudbada maanta rasuulku wuxuu alayhi salaatu wasalaam yaa baan ku dhaartay qofku meesha uu dhigto ushiisa ama maxaan ku dhaama taqaanay qaansadiisa ama meesha uu lugta dhiga kaliya inta yarta yani booska baa waxay ka qaalisan tahay adduun oo jannada dhexdeeda yani adduunku waxa dhex yaala intaas ka qaalisan hal islaam oo islaamaha jannada kamid ah hadii adduunka u soo bixi lahayd ama ay soo qoransan lahayd law anna mar'atan min nisaa'il jannati tala'at hadii soo qoransan lahayd adduunka ay soo fiirin lahayd ila al-ardi la adaa'at ma baynahuma irka dhulka u dhaxaysa way iftiimin lahayd wala mala'at ma baynahuma rihan waxayna maxaa wada ka buuxin lahayd carab iyo udgoon ba adduunka oo dhan qabsan lahaa wala nasifuha khayrun min dunya wa ma fiha islaamta al-jannaha khamar keeda ayaa ka qiimo badan adduunka wax dhex yaalo oo taas rasuulku leeyahay alayhi salaatu wasalaam hadithka bukhari baa wariyay ana waxa lagu tusayaa rag baa jira ku aakhara seegay naga adduunka jooga ku aakhara seegay fisqi xaraan zino qurun waxaas ugu mashquulsan yahay waa kuwan adduunka jooga wax jira ma marka loo fiiriyo kuwa isaga way ku seegin marka saan adduunka jooga dadka gaalada doonto yeena ku seejinin inaad ka qadid alaabtan maxaan ku dhaama taqaanay yani qaaliga hal xabo khamaar kale adduunka oo dhan ka qiimo badan iska ilaa marka qurun iyo xaraan adduunka maxaa yeelay xaggaas maxaa wax la doonta hada ninka guurku meeshan isu qaban kari waayo hadduu si fiican u shaqeysto ciil ma qabo xaggaas uu ka helayaa inuu soo diyaarsan imaam ali radiyallahu ta'ala anhu wardaa inuu waa caalim oo fiqh badan wuxuu sidoo kale nin gabayga tiriya oo maxaa ku dhaama murtida ku soo aruuriya erayo suugaaneed ajiib ah دور أريه أوليه وحوليه وعمل لداري غد رضوان وخازنها قفق مسلم كوهو أشق يسبري بريتو كان ما أنت معها قولها إسرع وحافرها يكا أما خسنتك رضوان ملك ليداهو والجار أحمد والرحمن بانيها قولها إسرع تلاميسة وحاكم بذا برس وحاقرأها أحمد من هو الأحمد من هو أحمد ومحمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام ما محمد الجيران الله نقول برس الله نقول إساء والرحمن بانيها قول يا عبس قولها إسرع انجينير كيف عندي ما الله ويري ما إله الرحمن سبحانه وتعالى بعد بيصير وكودياري أو مرتقابه هاي كل مرة الله هو بيصير ماذا حمد درس قراءة رضوان ملك اللي ده هذا وكيه يعني وكيه محاور منجر كيه
هذا غرفة أنا بيكسنه برجع إسرع أشق يسبوا له والله برجع عين وسنحين وغير قصورها ذهب والمسك طينتها قصريات وحكم السيدين ذهب بكم السيدين عرض يبعاك ولا متقنا عيد بيننا وحويان ومسك والزعفران حشيش نابط فيها زعفران بالك اللي هذا ودر قروحنا بلان ودقولنا موقع قروح بلان له وقبح ماشي وعاد وقبح أنهارها عسل المصفى ومن لبن وبيشهد وعاناء المرض والخمر يجري رحيقا في مجاريها خمر الريال سعوي بعضها الأمور ينا معها والطير تجري على الأغصان عاكفة تصبح الله جارا في مغازيها وقصد القبين يا فمن يشتري الدار في الفردوس يعمرها يا إنسان يقول إذا يسوي الفردوس كل حياله يا عمر أيوه بسنة يا بركعة في ظلام الليل يخفيها ركعة هبيك مبدئ وتكري أو قريي ياكو بسنة يعني عباده شنق لغتها يا لا شقي سنة يوه هذين ولد قارعنا في معلومية لمشكوها هذين القصة النقطة تطبع ماشى سيارة سبحان الله كفى إذا يستا أو كان اسكا مرة عن اسكا يغين سأسوال الله رضي الله تعالى عنه وأرضاه إله سبحانه وتعالى وحنا وقدر تشنبه إلهنا سبحانه وتعالى وحنا كبر ينقلون غدا من أهل الجنة waxaan u baahanaynaa marba maanka ku hayno dadkii jannadan tagayna waxay sameeyeen baa jira dadkii jannadan gafayna meel daran oo kale oo marka la doonay aadeen sabab ay ku tagan iyaguna ilaahay jannadan asaga ale naartana isaga ale adoomadan isaga ale oo jiis buu bixiyay kitaabka quraanka ku qoran oo ah taana dadka saasanayaa leh taana dadka saasanayaa dhaqankeena wada yaraan wanaajino intaan nool lahayna يعني محو عمل كأنه هجاجنا عمل كأنه وكنا يا إما أنت نعمة الوصية إلا قلنا جزاء بما كانوا يعملون وإذا بدك كلام تلا تقولون اللي هذا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون ساسا نقول إيسا ألا صلوا وسلموا على خاتم الأنبياء والمرسلين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ردنا إليك ردا جميلا ووفقنا لما تحبه وترضاه اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وألف بين قلوب المسلمين وأصلح ذات بينهم وجنبهم الفتن ما ظهر منها وما بطن برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.